عند الله waxa qiimaha leh waxa weeyaan qalbiga saashay isweydiinta leh waxay tahay markaa miciyaarku haddaanu ahayn jidhka yaraantiisa iyo weynaantiisa toona haddaanu ahayn quruxdiisa iyo foolxumadiisa toona haddaanu ahayn maalka badnidiisa iyo yaraantiisa toona miciyaarku mikiyaalku wax lagu qiyaasaya halbeegu waxa weeyaan waxa yaqiintaada sidqigaaga ikhlaaskaaga iimaankaaga kuwaasoo thamarada ay dhalaanna uu yahay alcamalu الصaalix wاlakhlaaq الطayiba yaad rabtaa markaa inaad isu qurxiso ma bini aadamka hortoodaad rabtaa qof qurux badan inaad ka noqoto mise ilaahay agtiisaad rabtaa qof qurux badan inaad ka noqoto markaad bini aadamka ka rabto agtooda inaad magac iyo maamuus ku yeelatiyo qurux sibuu qofku u fakeraya awlawiyaadka waxyaabaha uu horaysiinaya wax gaara weeyaan waa maadiyaadkaasi waa inuu isdhaldhalaaliyo jidhka dhisto lacag sameeyo wahaluma jara dadka agtoodaad markaa magac iyo maamuus ku yeelanaysa laakiin haddaad rabto ilaahay agtiisa inaad magac iyo maamuus ku yeelato kuwa kani ma aha priority number 1 ma aha laguma laha iyaga dayac waa ka warrami doonaa laakiin ma aha shayga koowaad waa maxay waa baatinkaaga saad u qurxin وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى كلمات كوبان بين قرن دونا المسلم مع نفسه أو معاملة المسلم مع نفسه قفك مسلم كا يسد للربه إنه غلط مع نفتيسه كمسلم كاي مع ربه بولا دقميا مع الخلق بولا دقميا مع البيئة مع المجتمع لكن وحين كورا من يسجى نفتيسة سيدا للربو إنه ولا دقم عموما نحن نقفكو كرئي كلبة أما قيبتي سهوسة كلك في صومالي اللابطة لينا بعدين إذا كشي اللابطة كسلامية والشعب اللي قلت رأينا قضبة مركا كلك ما في القلوب ولابطة إن كركنا وحاجة سريع ظاهر كيس قفك بين آدم كهيسو ولا دغميو نفتيسا ظاهرا وباطنا هوستيسا هي كركيسا وهرين وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحوا أبو رقاب lagu ilhaamiyey sida noolaha kaleba loogu ilhaamiyo nolosha difaaca taranka inta badan asaasiyaadka waxaasi wax la barta maaha ilmuhu markuu dhasho cidina ma barto naaska sida loo nuugo waxaa laga yaabaa ilaa khubarada dunida oo dhima hadday isugu timaado inaanay bari karteen ilma yaroo aan fahmaynin siduu naaska u nuugi lahaa waa fitra ilaahina wuxuu leeyahay nabi muuse markii la yidhi rabbiga waa kuma rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa rabbigay waa allaha subxaanahu wa tacaala wax walba abuuray ee ku hanuuniyey siduu u noolaan lahaa siduu isu difaaci lahaa siduu u tarmi lahaa سبح اسم ربك الذي خلق إلهي وحكوت الماما يا آيات كاسي سبحا وقوه الريوردن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إله سبحانه وتعالى أبو ري السمي شانقوي هنوني كواسي مركا فطريا بوقف كستابو يغانا qiimaha insaankuna marka maaha muuqaalkiisa sare xadaarada maanta nooli maadaama ayaanay aakhira aada u rumaysnayn inteeda badani
muhiimada ugu badan waxay saaraan muuqaalka sidii looga shaqayn lahaa jidhkiisa iyo siduu u dhisi lahaa waxaa aada ugu badan oo weliba casriba casrigu ka dambeeyo uu kaga sii badan yahay waxay yidhaahdaan mowdac casriya liahli tafaaha waxaa ah dadka tafaahada ka shaqeeya waxa aan qiimaa lahayn moodada casrigii waxay u tahay jidhka sida loo dhiso in waa aragteenoo dhallinyaradu six back baan haya kan baan haya muruqyo inuu samaysta iyo waxaasaa lagu mashquuliya waa xadaaratu tafaaha waxay inoo dhigtay waxaa lagu mashquul yahay kriimo kanbaa madoobeeya kanbaa caddeeya kanbaa dhalaaliya kanbaa uska gamaydha kanbaa ka daba hagaajiya kanbaa sidan yeela kullu dalik markaad isku wada darto waa almawda alcasriya waana sii badanaysa ahlu tafaahu wuu ku sii badan yihi xad baa la gaadhsiiyey maxay awal dumarkaa lagu yaqaanay waman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin laakiin xad baa la gaadhsiiyey hadda uu raggu la loolamo dumarka markay joogto isdhaldhalaalinta iyo isqurxinta iyo iscadarinta iyo timaha sida loo goynayo iyo sida loo feedhanayo waxaa laga yaabaa inayn maanta aragno dee ra-iislu waa profession 3 years la barto hadda cinda algarb ardaygu markuu secondary school ka baxo ayuu 3 years professiona gelayaa timaha sida loogu faygaro ugu baranaya saa loo gaagaabiyo loo dhaadheerayo loo midabeeyo kan loo sameeyo waxoo dhammi waxa weeyaan insaanka muuqaalkiisa in laga shaqeeyo ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ka warramayaa duul feedha ahaan qurux badan hadal ahaan la dhegaysto qiimo ahaan laakiin aan qiimo lahayn في سورة المنافقين إلهي مركم منافقة كورمي وعقوت المعنى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بإلهي هذا دركته موقال كودية هندمان كودية سيدة يقول سيئين ويكو عجب قال نساء عبد الله بن أبي يكو حديثي عبد الله بن أبي بقرني ما لو سلحي مركو النبي سوق لي مدينة مركانين موقال كيسة كشقية وحوقا وما لنت جمعاه انتو ضدك صور حمره yidhaahda nebigii baa idiin yimi dhegaysta warkaa ku khudbadeeya oo isaga iyo kooxdiisu aad u muuqaalkoodu u qurux badanyay bay ahaayeen ilaahay markaa wuxuu leeyay waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum haddaad aragto muuqaalkoodu wuu ku yaabgelinaya wain yaquuluu tasmac liqowlihim hadday hadlaanna warkooda waad u raaricinaysaa fasaaxadooda iyo si ay warka u balballaadhinayaan waad si fiican baad u dhegaysanaysaa أجزامتودا أي قروح دودا وحلقوا تلمامين إلى مدين كأنهم خشب مسندة تيركو مركو قرية كل شيء قيموا ليه مركو وحلقوا قرحية قيموا ليه لكن مركو ما يلقوا تيريو باقي ما عمله وحلقوا تلمامين إلى مدين تيركو وقتك وقيمة لا أي هي خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو مو قالكو إنانو إلهي اكتيس وحكو وين هين dadkii ilaahay ku tilmaamay adduunka iyagoo kale laguma abuurin uu yiri waa la halaagay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhat al'imad allati lam yukhlaq mithlaha fi albilad miyaad arkeen baa ilaahay yidhi sida ma ogtahay sida rabbiga u galay reer caadu iram kuwii ahaa caadan ilula iyo caad al-aakhira ba kala jira caadu iram marka waa caadan ilula عادكي هو سيدا إلهي أقلي كوي ذات العمادها إلهي وحكو السفين يهين التي لم يخلق مثلها في البلاد إياك وحلا لك وكالو أبوري مجرب إلهي لي حوق كودي اندمان كودي قابك إلهي وأبوري سبحانه وتعالى إذا موقالكو بني آدمكم ما أنت موقالك أدو بشقية إلى حد أحد العلماء الله نحرسته محمد قطب لو رجل وحكوت المامي عجول آدمية بيري دبيب بنا آدم والمرغيضة اللي استعراض كالسمية سمي دنارك وحكوت المامي دبيد الله عنا يدوال الناحية مرغية الله يلا وآدنا الدبي يبوك الشاقة غير قلبيتك وحلقة يا من نمط الحياة
iyo namatul caqiida inuu iyaga isu waafaqsan yihin qaab nololeedkeeda iyo waxay rumaysan yihiin wuu isu waafaqsan yihin hadduu ninku rumeeyo inaan aakhira jirin xisaaba jirin wax ka dambeeya jirin sootan uunanu isbalballaadhiyo maaha wuxuu doonaha sameeyey waa inuu adduunyadu dee xoog uga fakaraa ama jir ha dhiso ama maryo ha xidhidha ama wuxuu doonayaa isku xidhatan waa inuu aada uga fakaraa bay noqonaysaa iyaga namatul xayaadku markaa muctaqadkoodii waa waafaqsan yihiin oo iyaga badhna waxay u arkaan enjoyment baa loo baahan yahay iyo adduunkuba inuu wax yari fursad yar yahay oo la raaxaystay intaad ka faa'iidaysan karto ka faa'iidaysa bay yidhaahdaan qaarna waxay yidhaahdaan bahashuba waa cabasa way isdilaan labadaa kooxood bay u qaybsan yihiin qolo nolosha ka dhacda ama derbi jiifs ka noqda ama isdila ama noloshaba ka quusta iyo kuwa isdhaldhalaaninaya labadaas labadubana namatul xayaadkoodu waafaqsan yihiin odhan karna ama almu'min ilaahay rumaysan ee qiyaamo rumaysan ee xisaab rumaysan ee janno rumaysan siduu u fakerayo iyo qiimaynta uu adduunka siinaya way ka gedisantay nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum wa fi riwaaya in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum ilaahay ma eego muuqiinna iyo maalkiinna ama muuqiinna iyo quruxdiinna iyo jidhkiinnu siduu u dhisan yahay ka min almaal baad haysataa intaad carruur dhashay intaad xaasas leedahay intaad adduunyadu kugu badan tahay ilaahay taa ma eega buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam walaakin yandur ilaa quluubikum cinda allaahi waxa qiimaha leh waxa weeyaan qalbiga su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa micyaarku haddaanu ahayn jidhka yaraantiisa iyo weynaantiisa toona haddaanu ahayn quruxdiisa iyo foolxumadiisa toona haddaanu ahayn maalka badnidiisa iyo yaraantiisa toona micyaarku mikyaalku wax lagu qiyaasaya halbeegu waxa weeyaan waxaa yaqiintaada sidqigaaga ikhlaaskaaga iimaankaaga kuwaasoo hamarada ay dhalaanna uu yahay alcamalu الsaalix wاlakhlaaqi طayiba yaad rabtaa markaa inaad isu qurxiso ma bini aadamka hortoodaad rabtaa qof qurux badan inaad ka noqoto mise ilaahay agtiisaad rabtaa qof qurux badan inaad ka noqoto markaad bini aadamka ka rabto agtooda inaad magac iyo maamuus ku yeelato iyo qurux sibuu qofku u fakeraya awlawiyaadka waxyaabaha uu horaysiinaya wax gaara weeyaan waa maadiyaadkaasi waa inuu isdhaldhalaaliyo jidhka dhisto lacag sameeyo wahaluma jara dadka agtoodaad markaa magac iyo maamuus ku yeelanaysa laakiin haddaad rabto ilaahay agtiisa inaad magac iyo maamuus ku yeelato kuwa kani ma aha priority number one ma aha laguma laha iyaga dayac waa ka warrami doonaa laakiin ma aha shayga koowaad waa maxay waa baatinkaaga saad u qurxin lahay oo maxaa lagu qurxiyaa iimaan caqiido fiican cibaado toosan akhlaaq wanaagsan kuwaasaa lagu qurxiyaa ilaahay munaafiqiin iyo dad xunxun markuu sifaynaya waxaa lagu tilmaamay yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadka inay ku hor ceeboobaan ma rabaane way isqarinayaan ilaahay si agtiisa inay ka ceeboobaan wax weyn uma arkaan dadka way ixtiraamayaan oo waxa ay qasayaan dadku inuu ku ogaado ma rabaan waa maxay markaa dadka indhahooda inay ku hor ceeboobaan ma rabaan laakiin yay rabaan inay ku hor ceeboobaan walaa yastakfuuna min allah baa ilaah yidhi xaggana uguma jiro waxa la qiimaynayo sida awgeed ayuha alaxiba ilaahay kuwuu ammaanay ee uu guusha siiyey fii baycat ridwaan baycatu shajara ilaahay markuu sifaynayay saxaabadii istidhi cimraysta ee loo diiday ee dagaalka u diyaargaroobday ee nebigu baycada la galay
إلهي وحليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إلهي الرالب كان نغضيبا ليدي مؤمنين تي وقت هشيسك يا بيعada kugula galayeen geedka hoostiisa maxaa ilaahay kuwa ku sifeeyey facalima ma fi qulubihim balayhi meesha ilaahay leeyahay waan daalacday oo waxa agtooda yaalla baan ogaaday ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxa rabbi ogaaday oo agtiisa xaqiiqo ka noqday ma fi qulubihim wixii qalbiyadooda ku jiray ee iimaanaha ee ikhlaasaha dhab ay u rumaysanaayeen rabbigood kaas markii ilaahay ka arkayna abaalmar adduunyaa la siiyey intaan kii aakhire la gaadhay ka aakhire ilaahay wuxuu leeyahay laqad radiya allah ilaahay baa raalli ka noqday haddaad bini aadamka agtiisa maamuus iyo magac ka raadinaysa kuwan ilaahay wuxuu leeyahay xaggaygay magac iyo maamuus ku leeyihiin waxaa kaloo ilaahay tilmaamay adduunka waxyaabii loogu baahida badnaana in ilaahay siinayo sakiin iyo xasillooni dunida maanta aynu joogno maxaa waalay anxiety iyo maxay ka'aaba iyo qalaq iyo depression iyo waxaasaa dadka wareeriya kuwan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala sakiina xasillooni baan siiyey iyo wa fatxan qariiba furasho inay guulaystaan xataa dagaalada dunida iyo waxa kan iyo khaniimooyin tiro badan leh laakiin waxaan oo dhan maxay ku heleen ma muuqaalkoodu inuu qurux badnaa ma inay ciidamo badnaan ahaayeen ma inaysaan maya ilaahay wuxuu leeyahy facalima maa fii quluubihim waxaan waxay ku heleen waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy waxa la ogaaday oo muuqatay qalbiyadooda waxa ku jiray aakhiro marka la tago muhiimada koowaad waxaa leh ilaahay wuxuu leeyahy yowma tubla saraa'ir waa maalinta wixii qarsoon ay soo muuqan doonaan إلهي وحلا وحصل ما في الصدور وحلا تمييزنا يلا كلا السوعية وحي لابتك كتيري دمانتو كورن هداد إلهي ورتيسة إيا ميل خلق يقولنا ميتشوغانا تكو عيبودو هذو عيبتا واحد سكي إلالي ليسي إن يروكو قرار يساما يرو تولا كلا جوكتا اللي يردو يمكا ميلا لغا قرار ينطي تقا واحد دونا بيساميا وهي دي عيبو بما هي سوماها tuula afrikaana haddaad tagto anaada waxba ka garanaynin dee waxaad doonta haddaad samayso ceeboobi meesha somalilan reeriina kuma oga iyo ciddii aad ka timine waayo khalqigaad ilaalinaysa ka warran qiyaamo marka la yimaado yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya ay dhacdo maalintaa in lagu soo bandhigayo oo aan waxba qarsoonayn oo khalqiga oo dhammina tuban yihin مخلوقات يا من آدم إلا كيود بيميل يتاجين إن تكهر عبودة كور ربي كانوا أيها الأحبة أنا وكهد دونا مقالك قيمة ولي أنت إلاكتي يمكن ولا قبل بدي لكن أنت إلاكتي وحبين كتل مامي دونا أما عند الله نبي حلي حديث كي مسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلا بره حلا أركابنا بيقول مد أشعث بصاصيسا لو دمر كان دبدو بحنا وصيف فرفرنا كوفية ده لها جاجستا وده لا اسمه شيء نبي يقول مد أشعث مد بصاصا ومدفوع بالأبواب دتكو أنا يسود وينين martiyo marka ku yimaadaan badna waa loo raxraxleeyaa to waa la soo dhaweeyaa qaarna waxa la yiraahdaa muxuu doonayaa miskiinka marka muxuu doonayaa baa la yiraahdaa ama ninka fiicanina wuxuu yiraahdaa wax inaga siiya qofka kalena adeer ordo waxsan Allah iyo waxbu ku yiraahdaa iska tag marka wuxuu nabigu ku tilmaamay kariinu yahay madfuuc bil abwaab albaabada kuwa loo raxraxleeyaa laga furo ma aha haddana wuxuu nabigu leeyahay low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaarto hadduu yidhahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay dhaartiisa uu rumaynaya qiyaas aduu qof bini aadama oo hadduu wax ku dhaarto ilaahay leeyahy waan u rumaynaya
لو أقسم على الله أقول هذا والله ساسين قريسا لأبره بالنبي عليه الصلاة والسلام والله الرمينية dadkan waxaa ka mid ah ninkii uu Umar bin al-Khattab xadiiskii kale muslim ku yaalay ka warramayay Umar bin al-Khattab waqtigii uu amiirul mu'miniin ka ahaa ayuu ciidamada taakulada ee Yaman ka yimaada waxa laga dagaalamayay Shaam iyo Ciraaq oo Beershiya ama nimankan hadda Eeraanta la yiraahdo oo dawladii weynayda iyo Romanski iyo Shaam deganaa labada meelood baa dagaal ka socday marka muslimiinta oo dhami madadku taakulayntu waxay qabanaysay labadan meelood ka Yaman taakulaynta ka timaada ee ku socota labadaasi Madiina soo marayeen nimanka Madiina soo marayay wuxuu oran jiray war ma idin ku jiraa nin Uways la yiraahdo Uways al-Qarni Uways ma idin ku jiraa markaasay waxay yiraahdeen Uways kuwa kayo Uways ibn Aamir nin la yiraahdo buu yiri ها بيراهدين نين قبيل كيسو مراد يهي ما يبير سيدا ها قرن نين كسي ما يهي مركا سيدا هدين ها ورنيكا أندونا يابوكو يرين نين انت برس كل عضي برس كو حنون كان دادك وضع عضيها انت برس كل عضي كبوك سيدي وميل درهمين لك سول إن لاقي وكو هاري مي وحيدا هدين ها ورنين هو يقول له وهو يدي آد قصة مفلا ما يهي بيري ورنكات شيء سبالي عمر ون لا صعدا يبير بيري والله يرى ويري وحن مغلي إلهي رسول كيسيوله تاكلين تعيدنا كلمة دون طيما نك الله السعودية لينا دويس بن عامر قبيل كاي قبيل كا كترسن برس كقبيل كبوكس دي موضوع الدرهم موياني هو يدي قصة مفلا لو أقسم على الله لا بره والنبي محمد بس يشجع عليه الصلاة والسلام والنبي محمد بس قاري أتابعي ما ها صحابي ننكاس نبي قال نوش يجيب وليه ويري ننكاس هدو إلهي كل عرضه إلهي وفولنا إياه دارتيسا عمر وهداد نكا أركته إلهي دم دافي ويدي كل بكوير وعمر بن الخطاب أيها وحلو قولي هداد نكا أركته waxaad tidhaahdaa war bal ilaahay dambi dhaafii weydii xadiidkii intuu sheegay ayuu Umar Uways wuxuu ku yidhi fastaghfir lii ilaahay dambi dhaafii weydii Uways al-Qarni ilaahay buu dambi dhaaf weydii dabeetana Umar wuxuu ku yidhi xagaad u socotaa wuxuu ku yidhi Kuufa maraya dee halkaasuu Ciraaq ka gelaya ka dagaalgelaya Kuufana socdaa buu yidhi عمر وحكو يري كوفة والي جوجا يعني أمير كوفة جوجا أن وراء كوفة قرأ عمر وحكو يري مركا وردتك غبراء الناس دتك عام كاين كل احترابات شعليه ورغض هذا اسكاي سبيل عمر وحر رأي الله يرى ما مصاد برصابك غفرنر كهلكا جوجي إن لو بالله بيو شنو حليه هاي dadkan ka mid noqonaya ay Umar raalli ahaw sidii iskaga tagay xajkii dambe ayaa niman Yaman ka soo xajeen xajkii markii la yimi ayuu Umar sidii oo kale nimankii reer Yamaneed u weydiiyay war nin caynkaasi banooliye ninka bada rag reer Yaman ninkii baa yidhi haa sifaadkii buu sheegay ninka caynkaas haa bal ninka iga warrabuu yidhi Uways دويس أنا وحن كاي مبوري تركته رث البيت قليل المتاع قولي يا ربوني يرسوا كتيرة وحنا أنا هاي سبعة أنا كاي مبوري إن كانت شيء يسوع لو إنه مواطن أو ده كي مقالة دي تشوجا لكن هو حيستي أمدت كم موضة كتيرة ما هاي إن رث البيت أبوها بولي قولي سنة متواضع إسكي هاي إن متاعه هايستانا وآدو يري حديث كيبوش أقول وريا نقال شيء النبي محمد ساسو كيريه هذا دركته إلهي دم دافي ويدي كله ونقضينكي دبتنا ويسبوت له وريا ويسو إلهي دم دافي ويدي
ويسوح كويري ورضا عمل صالح هذا كي وحج كي يميه أدقو إلهي دبدا فينا ويدي نينكي وكوع العلي ورضو إلهي دبدا في ويدي بولي ويسنو حلي هاي ورضا عمل صالح كي وحج كي يميه أدقو إلهي دبدا فينا ويدي مركي دنبو كويري ورياه ويسباله مع عمر بعد لك ولا أنت عمر بن الخطاب يا دركت مركز كويري ها عمر بارك دبتنا ودعي مراسي بيري كسوة حل الله حلو برد موسيقى dadkii markay ku arkeen maryahan yare في عرب قروح بدل له وسيتو ayaa magaaladu waxay isweydiinaysaa waa ninkii weysaa maanta uu xaragoonayay بينين اللي ويسن هذه البردة باب الاسويدينية بردة ويس ما تحقوا كسوها هي اساسية يعني وانا كان مرة ولي الله قوله إنه مرة يرحنه ده تقول لي ما تحقوا كذا كدي بماشي بس كده تقول دوت حديث كم حتى المامية حديث كحنات المامية إلهي أكتيسة قفكوا إنه كم موضة هي بشر كأنه كم موضة وكلا لبا إنك كان وانك على لا يهدو إلهي كل دارته إلهي وحكون دارته ورميني النبي الله محمد بالي عليه الصلاة والسلام ما هاق فايدتك لي ولي وكوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مساكت المامية إذن أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام حليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كحوقة أغلب المحدثين وحيليين حقا لشيغية القوة المحمودة في الشرع وحويا بيليين قوة البدنية انت بدن معها لكن وقوة في عزيمة وقوة عزيمة في الحق بينها أما وبصيرة في أمور الآخرة أما والثبات على الطاعة أما الصبر على الأذى أما النشاط في العبادة وحينها وقفك كو أضك cibaadadiisa iyo alla kacabsigiisa iyo dhowrsanidiisa iyo xaqa sheegistiisa iyo diinta ku dhagsanaanteeda iyo khayrka yani wanaaga qofka ku weyn weeyaan quwada la sheegaya baylay kaasa ilaahay agtiisa laga jecel yahay mu'minka daciifka ah wa fi kulli khayr bu nabigu alayhi salatu wasalaam maradu qofku mu'min iyo cibaadadiisa aqeedadiisa hore samaynayo de dhamaantood khayr ba ku jira laakiin khayrnimada ilaahay loogu kala dhawiyo lagu kala sareeyaa waxay ku xidhan tahay sidaad ugu xoog badan tahay saa daraadeed buu nabigu wuxuu yidhi ihris calaa maa yanfacuk ku dadaal wax ku anfacaya nolosha umaad imaanad khasaarayso umaad imaanin inaad cayaarto umaad imaanin inaad wakhtiga disho bale aglaa shayin cindak oo ra'samaalkaaga dhabkii waa wakhtiga hantida isaga ka qaalisan hantida waa la helaa laakiin waqtiga lama helo ma soo noqdo hantida waa la kaydsan karaa mustaqbalkaad u kaydsan kartaa waqtiga lama kaydin karo waa qasab inuu wada isticmaashaa feelataga saacadood kugu socdaan ولذلك waxay yidhaahdaan hantida waa la khasaari karaa laakiin cumriga inaad qayb khasaarto haddaad xanuunsato inaga dhakhtarka ku carara maxaynu ugu cararaynaa geerida iyo daw xasaynu ka soo cararayna Soomaha cimraad raadinaysaa weeyaan markaad heshana waa dayacaysaa markaad haysatana waxaad rabtaa inuu dayacmo nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war waxa ku anfacaya ku dadaal wasta'in billah wala ta'jas ilahayna kaalmayso ha caajisina wahsiyuku gelin xadiiska waa xadiiska taqaaniina dheer أيها الأحبة موقالك السري مهمة وين وحكى لك كجده سيداو قيد حديث إمام أحمد يا ابن حبان بورينا يا حسن الوقت المامي عبد الله بن مسعود ساو تقانين موياني وجبل في العلم والعبادة صحابة فقهاء الصحابة لكن markay jirka timaado nin nasyar oo mijadhu dhuuban oo aad u nasyar buu ahaa dabeetana geed buu isiraacaday ka soo goo
markuu geedkii koray ayay dabayshii ka fayday maradii dhudhumadiisii baa muuqday markaasay saxaabadii qosleen dabeetana nabigu wuxuu yidhi mima tadxakuun maxaa ku qoslaysaan qaaluu min diqati saaqayhi bay yidhahdeen dhudhuma fiiqnidiisaanu ku qosalnay cabdillaahi siduu u mijo yaryar yahay ayaanu ku qosallay bay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxud ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaarteen dhudhunkaa yare aa arkaysaan buurta uxud ka culus qiyaamaha miisaanka buurta uxud dhudhunkaa yare cabdillaahi ibnu mascuud ka culus buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba xooggu iyo hantidu ma xuma waa min nicam ilaahi bay ka mid yihiin laakiin waa waxa lagu isticmaalo markay khayrka leeyihiin waa maxay waxa lagu adeegsado ay iyagu khayr ku leeyihiin sidaa awgeed xadiidkii kacb ibnu cujra imaam aطabraani baa warinaya rijaalkiisana rijaal saxiix buu ku tilmaamaya imaam ilalbanina waa saxiix ligayrihi buu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy nin baa nebiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dhallinyaro ah oo xooggan oo jidhkiisu dhisan yahay oo firfircoon iyo ka muuqato saxaabadii meesha fadhida waxay dhahay yaa rasuul allahi low kaana haada fii sabiili illah waxaa soo muruqaya digdigi hadday ahaan lahayd wax jihaad lagu gelayo ayaa fiicnaan lahayd bay saxaabadan isweydiinayaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fahuwa fii sabiili illah war hadduu soo baxay carruur yaryaroo wuu xoojinayo oo wax siinayo kaasiba waa fii sabiili illaahi buu nebigu ku yidhi wain kaana yascaa calaa abaweyn shaykhayni kabiirayn laba waalid oo gaboobay hadduu u soo xoojinayana fahuwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi hadduu u soo baxay isaga oo naftiisa cifa u raadinaya iyo inaan cidda baryina xoogsado oo dhowrsanaadana fahuwa fii sabiili illah hadduuse u soo baxay buu nebigu yidhi riyaa'an wa mufaakhara istus iyo faanfaan hadduu u soo baxay dhallinyaradu dee inta badan markuu isku hubiyo inuu sigisbaaga yeeshay shaadh weyn oo khamiiskayga oo kalaa ma xidho oo xidhaa garan yaroo dee ku dhegsan oo muujinaya inuu muruqyadiisa laga arki karay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu u soo baxo riyaa'an wa mufaakhara ismuujin iyo faanfaan hadduu u soo baxay fahuwa fii sabiili shaytaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan almaal walquwa albadaniya sidooda uma ammaana ee waxay ku ammaanan yihiin waxa lagu qabto haddii wixii sharcigu ogolaa lagu qabayana waa wanaagsantay saxaabada rag baa maqasha geesiyaal ahaa oo dagaalyar ahaa oo dee waxaa ka muuqata rag xooga inay ahaayeen oo goobta dagaaleed wax iska dhicin karaya qof walba ilaahay nimcada waxbuu ka siiyey axaadiista markaad dhegaysataan in badan soo ma maqashaan nin abu hurayre la yidhaahdo aad baa u maqashaan iyo cabdillaahi ibnu mascuud iyo cabdillaahi ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu camar ibnu caas iyo ragga aad baa u maqashaan axaadiista marka la akhrinayo in badan miyaa maqashaan khaalid binu waliid iyo macad ibnu yakrib iyo maqdaad ibnu laswad iyo albaraa kuwa miyaa in badan maqashaan may kuwan siirada iyo goobaha dagaalka iyo marka la joogaad maqlaysaa qof waliba nimcadii ilaahay siiyo wuxuu kaga faa'iideeyey inuu wixii aakhiro ku anfacayay uu ku keeno kii xoog iyo muruqa la siiyey wuxuu ku keenay maxay inuu goob dagaal intuu galo uu yidhaahdo seeftaa madhanaysay siduu u dagaalamayay qiyaas qof le goob dagaaloo qura 8 seefood ka madheen khaalid tii sagaalaad baa gacantayda iska xijisay buu leeyay qofka intuu xooggiisu leekaa bini aadam isagoo seef la dhacaya ay seeftu madhanayso oo 8 xabba madheen oo xabaddii sagaalaad u soo hadho
nimcadii alla siiyey meesheedii buu mariyey looga baahnaa kan aqoonta la siiyeyna nimcadii ilaahay siiyey meeshii looga baahnayd buu mariyey idan waxa alla ku siiyey waa sidaad u adeegsato laakiin madaahirtu sideeda qiimo kuma leh sida awgeed ayaa nabigu meel fadhiya calayhi salaatu wasalaam ayaa nin baa soo maray markaasuu yidhi war ninkaa ka warrama maa taquuluuna fii haada kan maxaa odhanaysaan buu ku yidhi waa idhaha ma ninkani bay yidhaahdeen dee waa dadka magac iyo maamuus kaley tilmaamaan waxay yidhahdeen xariyun in khataba an yunkax waa nin hadduu gabadh ku weydiisto gabadh la siiyaa bay yidhaahdeen hadduu erge kuugu yimaadana ergadiisa la aqbalaa hadduu hadlana warkiisa la dhegaystaa bay yidhaahdeen ninka muuqaalkiisii bay qiimeeyeen deetana waxay leeyihin ninkani waa nin hadduu gabadh kaa soo doonana la siiyo haddii uu hadlana nin warkiisa la dhegaysto hadduu erge iyo shafeeco kuugu yimaadana shafaacadiisa la aqbalo uu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kalea nin kale soo maray markaasuu yidhi maada taquuluuna fi hada maa taquuluuna fi hada kanna maxaydan odhan waxay dhahay ma kani dee kani waxay dhahay waa waaxid min fuqaraa'i almuslimiino nin hadduu gabadh ku weydiisana wax la siinaya maaha nin ergadiisa la aqbalayana ma aha nin warkiisa cidi dhegaysanaysana ma aha waa min fuqaraa'i almuslimiin bay ku tilmaamay bal miisaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu saaray ka eega wuxuu yidhi mid kan dambe iyagoo aan agtooda qiimo ku lahayn midh ah iyo mil'ul ardi dhulka muggiyo kii hore ah waxaad qiyaastaan dhulka muggiyo bini aadam ah xabadaasaa ka khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulka muggiyo kaasa iyo xabaddan qura ee aan idinka agtiinna qiimo badan ku lahayn kaasaa ka qiimo badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka muggii oo bashara laakiin noocii ah nooca lahaydeen hadduu khudbadeeyana waa la dhegaysanayaa hadduu erge kuugu yimaadana waa laga aqbalaya hadduu gabadh ku weydiistana waa la siinaya hada khayrun min mil'i alardi mili hada buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiisku bukhaari ku yaalla ayuha alaxiba darsigaygu wuxuu ku saabsiisan yahay intaanan ka warramin waxyaabaha qofka bini aadamka looga baahan yahay inuu ihtimaamka siiyo inaynu miisaanka baranno almiisaan alsharciy almicyaar alxaq maxaa dadka lagu qiimeeyaa maxaynu ku miisaannaa naftaada maxaad ku miisaamaysaa haddii markaad waxoogaa lacaga heshana aad aada u farxdo casarka haddaad ka seexatan aanu wax badan kula ahayn tira in allaha gafuuru raxiim iyadoo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka casarku ka taga fakaannamaa wutira maaluhu wa ahlu waa nin la mooro duugay moorada ma taqaanin moorada waa xerada waxa kuugu jira xoolaha waa nin la mooro duugay naf aan waxba looga tegin mood iyo nooltoona loo dhaafin ayuu u dhigmaa baa la leeyahay kani idan muwaasiinta sharciga waa inay agteenna ku weynaataa markaynu miisaanka garanno maxaa saxa maxaa u baahan in wakti lagu bixiyo maxaa u baahan in lacag lagu bixiyo maxaa u baahan in juhdi lagu bixiyo maxaa u baahan in qiimo iyo mudnaan la siiyo waxaynu garanaynaa nolosheenna saynu taynteebilkeeda u dhiji lahayno waktigeena idaarat alwaqt time planning markaasaynu fahmaynaa saa waktiga u qiimeeya ma lihin qofku nafta ha ciqaabo shareecadu taa ma qabto saxaabadii waa dhici jirtay raggu markuu xamaasadooday xamaasadda hore qaado inay wax un dabada isu geliyaan cibaadaha iyo oo ay nafta cidhiidhi geliyaan waa dhici jirtay waana iska dhacda qofka bini aadamka xamaasada hore markay qabato inuu meel cidhiidhiya galo waxaa dhacay saxaabigii weynaa ee abudardaa la odhan jiray waxaa ka mid ahaa raggii la walaaleeyey salmaan alfarisi markuu nebigu saxaabadii soo hijrootay saxaabada dadka walaalaynayay abudardaa iyo salmaan alfarisi baa la walaaleeyey
marka waa laba nin oo dee saxaaba ah oo sidii walaalo u dhaqma salmaan alfarisi baa gurigii soo booqday abidardaa markaasuu wuxuu arkay xaaskiisii umu dardaa oo maro aan qurux badani ka muuqanin iska sidata de waxaana la yaqaanaa gabadha ninkeedu markuu joogo oo dhaqankii muslimiinta hore gabadha marka ninkeedu joogo inay waxeeda ugu qurux badan qaadato iminka arrintu way isdabagedasho gabadha marka guriga ninku joogana dirceeda iska xidhataa markay dabadda u baxaysana way qalabkeeda xidhataa waa dabagedi waxaa arkay markaa saxaabiga kani gabadhii oo aan qurux badani ka muuqanin maryahay sidatiye waxeedii markaasuu wuxuu weydiiyey maxaa dhacay waxay tidhi walaalkaa dumar hungurigeed ma haya adduun wuu iska daayay oo muxuu samaynayaa waxaa la yidhi habeenkiina salaad buu u taagaya maantiina waa sooman yihi dumar iyo adduunyada iyo baabka waa ka tegey dabeetana abudardaa baa yimid raashin baan inoo samaynaya samee buu yidhi waan imanaya caawan soo hoyanaya salmaan baa la casuumay raashinkii baa la cunay raashinkii markii la dhigay buu yidhi anigu waan soomanay waa cun buu yidhi soonnayna waa la cunay soonka dee sunnaha ah qofku waa amiiru nafsihi weliba hadday martii kuu joogto martida inaad ixtiraamto iskala cuntaa fiican cun buu yidhi waa la cunay markii la cunay habeenkii la gaadhay ayuu abudardaa salaadiisii iskaga kacay war seexo ku yidhi maraduu dacalka qabto seexo waa seexday dee waa nin bartay habeen oo dhan inuu taagnaaday in yar markuu jiifayba waa soo booday waa istaagay salmaan maraduu qabto wuxuu yidhi seexo waa iska seexday haddana haduu siduu u hortaagnaa markii ay habeenka xaggii dambe tagtay salaaddii subax soo dhodhow akhiru leyl ay tahay ayuu yidhi kaca daba imanka waa la kacay salaaddii baa la tukatay waa salaatuleyl baa la wada tukanaya waa la tukaday markii la dhammaysto salmaanku wuxuu ku yidhi waryaa bidayridaa u dhegeyso ina lirabbika calayka xaqa walinafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa faacti kulla dii xaqin xaqa salmaan u dhegeysa buu abudardaaya u dhegeysa buu yidhi rabbigaa xaq buu kugu leeyahy oo inaad tukato oo cibaadaysato waa xaq lagugu leeyahy xuquuq kaloo lagugu leeyaa jirto naftaadani waa ammaano ilaahay kuu dhiibay iyana xaq bay leedahay in la cadaabo maaha xuquuq kalea lagugu leeyahay buu yidhi ehelkaagu xaq buu isna kugu leeyahy fa acti kulla dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa siibuu ku yidhi waagii markii uu bariyey ayaa nebiga loo yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana qisadii baa loo sheegay wixii dhex maray salmaan iyo abidardaa baa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay buu nebigu yidhi tii salmaan ayuu nebigu raacay xadiidku bukhaari ku yaalla bal ee dhallinyaradii xamaasadootay waxaa ka mid ah cabdillaahi bni camar ibn alcaas cabdillaahi bni camar ibn alcaas isagoo dhan dhallinyaro ah oo xoogan cibaado badan iyo aabihii gabadh u gooriyey camar ibnu cas baa gabadh u gooriyey dabeetana maalin dambe uu soo maray kheyrkii xaaskii buu ku yidhi bal warrama ninkii ka warram markaasay tidhi nicma rajul nin buu u fiican yahay laakiin adduun shaqo kuma leh gabadhu warkeedii intaasay ku dhammaysatay nin buu u fiican yahay laakiin adduunyo shaqo kuma leh camar ibnu cas wuu xanaaqay oo wiilkiisii buu maagay oo nebiga loo geeyey oo adigu warkii baa nebigu soo gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdillaahi bni camar alam akhbar annaka tasuumu nahaara wa taquumu leyl cabdillaahi bni camarow soo laygama sheegin oo layguma warramin inaad maalintiina soomantay habeenkiina taagantay haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo habeenkiina waan taagnay maalintiina waan soomanay war sidaa ha yeelin buu nebigu ku yidhi sidaa ha yeelin falaa tafcal ee maxay samee nam waqum wasum waaftir buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam seexo oo kac oo tuko oo soon oo afur
وايو فإن لجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإني نبغو حوت المامي شركاغو حق بو كوغولي مرتدو حق باي كوغولي داهي حاسكاغو حق بو كوغولي هي أديك waxaan ku doorasiinayaa buu yidhi inaad bishii 3 maalmood soontid waayo xasano kasta ب10 أمثالها baad leedahay waa siyaamu dahr markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow nin dhalinyaro xooggan baan ahay intaan is haysto inaan ka faa'iideeyaa baan doonayaa ka badan baan yeeli karaa waxaa lagu yidhi bishii 3 casho soon ka badan baan samayn karaa buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi haddaa jumcadii 3 casho soon toddobaadkii wuxuu yidhi ka badan baan samayn karaa wuu sii adkeeyaa markii dambuu nebigu wuxuu ku yidhi wuxuu isagu rabaa maalin walba inuu istiisii inuu wato dhallinyaradan xoogga ka faa'iideynayaa buu leeyahy dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe wuxuu ku yidhi haddaad sidaa diiday soonkii nebi daawud soom buu yidhi markaa nebiyullaahi daawud siduu u soomi jiray u soom oo walaa tazid calayhi waxba ha ku darin nebi daawud sanadka nuskii buu soomi jiraa laydhaha maalinna wuu soomi jiray maalinna waa furi jiray maalinna waa soomi jiray maalinna waa furi jiray marka noloshiisu saasay nebi daawud ahay isagoo boqor oo madaxweynaha oo nebi oo duni dhan u taliyo xog iyo xoolaba wax walba haya ayuu haddana maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray aan weliba waxa dowladda cuninay kaana yaakulu min camali yadi farsamo yaqaan buu wuxuu sameeyaa buu cuni jiray waxaan dadka ma cuni jirin iyo dowladda toona isagaa ismasruufi jiray dabeetana maalinna wuu soomi jiray maalinna wuu afuri jiray sidaa yeel baa lagu yidhi saxaabi kale cuthmaan ibnu madcuun la yidhaahdo saxaabadu markay qiiroodeen ragga badh baa yidhi waxaan rabnaa inaan isu dhufaannaba saana dumarba ugu baahan awrta sooma taqaana in la dhufaano aanay dumar u baahnayn ragga badh baa laga sheegay inay dooneen dumarkaa iyo waxaaba inaynu iska daynaa baan doonaynaa inaan isu dhufaanno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ragibta can sunnatii war aniga sunnadayda miyaad nacday buu ku yidhi anigu waan soomaa oo waan afuraa waan tukadaa oo waan seexdaa dumarka waan guursadaa ee fattaqi illaah yaa cuhmaan buu nebigu yidhi cuhmaan ibnu madcuun ilaahay ka cabso cuhmaanow ehelkaagu xaq bay kugu leeyihin martidaadu xaq bay kugu leedahay naftaadu xaq bay kugu leedahay ayuha alaxiba axaadiistan dambena waxaan u tilmaamayaa inaan xamaasaduna aydan qaadin islaamnimadu waa ictidaalkaasi dhexe laakiin inaad miisaanka garatid ah noloshaada qiimaha ugu weyni muxuu yahay waxa ugu weyne aada mudnaanta siinaysa inaad garato kuwani adduunyadu mahmaa banni wacalli bay odhan jireen dhis oo dheeree waad ka tegi doontaa uni adduunyada waxaynu daaraanoo raggii dhisay aakhiray qabteen waxna kama raacin rag waaweyn oo tujaaraan argnay oo hanti ciidda ka badan intuu ka tegay isagu wax badan ma dhisanine markuu dhintay wadaadkii dhexlaya uu yidhi waan aabihiin masaajid yar uga dhisa soomaalidu dee masaajidku bay taqaanaanba malaa sadaqaad kala bixiye masaajid u dhisa uu dhalay waxay idhaahdeen oo isba ka dhisan waaye maxaanu anagu ugu dhisaynaa waxaaga in lagu baryo dee may ahayn adiga waxaagii in lagu baryo oo la yidhaahdo war ninkii wax ka siiya wax ka dabageeya aday ceeb kugu tahay inaad adigu waxaaga wax ka qabsato ayay ahayd ayuha alaxiba marka waxaynu ku koobaynaa khalqiga hortiisa inaad magac iyo maamuus ku yeelato waxaa ka mudan ilaahay agtii inaad ku yeelato magac iyo maamuus muhiimadda koowaadna inaynu kaasi siino kaasina wuxuu inooga baahan yahay bini aadamku wayna ku garaadlo kan kale waynu aragnaa maadadda way inoo muuqataa kii lacagta helay siduu yara faakahaysanaya waad arkaysaa siduu kaaga yara gaadhi fiicanya waad arkaysaa siduu kaaga yara guri isaga waad arkaysaa tusaalayaasha kugu badan
laakiin waxaad moodaa noloshan dambe aynu imika nool nahay tusaalayaasha kale inay yar yihiin tusaalahani wuu badan yihiin aabbaha markuu kula talinaya muxuu kugula taliyaa nin noqoo meel ka soo baxa waa xoogse uun nebi maxamedna muxuu dhallinyarada kula talinayay kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil waa nin dhowr iyo toban jiro ninkuu nebigu eraygaa ku leeyahay waxaynu u baahan nahay miisaankii xaggu inooga janjeedha haddee inaynu xagga kale u janjeedhino iimaanku cusboonaysiin buu markaa u baahan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu athawb fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum iimaanku wuxuu u gaboobaa sida maradu idinku dul gabowdo marada haddii la maydho oo la maydho oo la maydho marka dambe calal bay noqotaa marka dambena hum bay noqotaa soomaaliga humka ma taqaanin maradu markay go'go'do ee ay meel walba laga kara maxaa tidhahdaa dee malaa'imka ciidaba ma karkarati waa la tuuraa una calaa kullin maradu sida ay u gabowdo marka la maydho la gashado ayuu iimaankuna quluubtiina ugu gaboobaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam muxuu u baahan yahay markaa jadidu buu nebigu yidhi inaad tajdiidiso ood cusboonaysiisato cibaadadaa lagu cusboonaysiiyaa cilmigaa lagu cusboonaysiiyaa wacdiga dhegaysigiisaa lagu cusboonaysiiyaa xidhiidhka ilaahay aada la leedo aada xoojisaa lagu cusboonaysiiyaa kuwaasaa cusboonaysiinaya waxa uu nebigu u tilmaamay ninkii dhallinyaradaha markuu la dardaarmayey cabdillaahi binu cabbaas yaa ghulaam innii ucallimuka bikeed war wiilow erayaan ku barayaa buu nebigu yidhi xadiidka intiina badani taqaaniin 40 ku yaala wuxuu nebigu ku yidhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali isagaa noloshaadoo dhan ilaalinaya isaga kugu filan ixfad illaaha tajidu tujaahak ilaahay ilaali hortaadaad ka helaysa xadiidka waa taqaaniin riwaayadka xadiidkaasi waxaan filaya inay ku jirtay riwaayadda imaamu axmed tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda badhaadhaha markaad ku jirto badhaadhaha soo ma taqaaniin barwaaqada nicmada rayraynta marka aad ku jirto ilaahay markaa xoog u xasuuso ilaahayna wuxuu ku xusayaa goorma markay dhibtu ku haysato bini aadamku inta badan soomaalida mahmaaheeda maxaa ka mid ah markay kadantay alla taqaanaa bay yidhaahdeen marka dhibtu jirto dee qur-aankana ilaahay gaalkuu ku tilmaamay waidaa khashiyahu markaa doonta balaayo ku kaca dabayluu ku kaca aan geelta cuskadaan aanu jirin markaa dacwu allaha mukhlisiina lahu diin baa ilaahay yidhi ilaahay iyagoo uu bini aadamku iska caadigiisa marka uu jabo ee meeluu cuskada waayo buu yidhaahdaa ilaahayow laakiin waxaynu u baahannahay markaad nimacaysanta inaad ilaahayow dabadiso hadhow waxaa la odhanayaa markaad jabtay aad ilaahayow tidhaahdo waa cod laga yaqaanay samada bay malaa'igtu leedahay codkani markuu nicmaysnaa waa cod la maqli jiray waa cod la garanayaa bay yidhaahdaa haddii kale waxaad noqonaysaa waxay yidhaahdaan garanwaa baad dee noqonaysaa haddii kale qof aan la garanaynin saa daraaddeed buu nebigu leeyahy nicmada markaad ku jirto ilaahay garo markaad shiddada ku jirto ayaa ilaahay ku garanaya subxaana wa tacaala dee qur-aankana waa idinkii arkay fircawn markii horena ana rabbukum ulaclaa buu lahaa markii biyuhu qaadeenee dhan walba ay kaga timina muxuu yidhi aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iil ilaahay muxuu ugu jawaabay al'aana waqad casayta baa la yidhi ma hadday ku keentay baa la leeyahy shalay markaad nimacaysanayd adigii wixii ku dhurayaye ma imika ayaad warkaa la timi baa ilaahay ku tilmaamaya ayuha alaxiba saxaabada iimaankooda way ilaashan jireen hal xadiid oo aad taqaani maan idinku xasuusinayaa saxaabigii xandala la odhan jiray alusayday ayaa maalin abibakar soo booqday saxaabigana wuxuu ka mid ahaa min kitaabi ilwaxyi nimanka marka nebigu waxyigu ku soo dego qora dabeetana markii abibakar baa yidhi kayfa ant war bal waran wuxuu ku jawaabay naafaqa xandala xandala waa munaafiqoobay buu yidhi abibakarow bisa maa qult waa maxaad ku hadlaysaa buu yidhi dabeetana sababtii buu sheegay sababtuu ka dhigayo munaafiqnimada ayuu xandala sharxay waa maxay
وحولي مركان النبي قال لك جوجنا واحد مودا الجنة دي نارتي أنا ناركينه إيمان كود جو حوقي إلى النبي محمد باه وحوشي جيه مركان أنا الجنة دي أركينا بعد مودا بقولي هي نارتي بقى لكن مركان نقولي إن ما نبغى يلي حولها هي عروضة هي دمرك هي ريرك هي على مركان وحى كو يرى مشغول لنا وحي وأنا يكلا الله مطل ماما يا سيدي هرمني saxaabiga markaa muxuu raadinaya markuu nabi maxamed hor fadhiyo calayhi salaatu wasalaam iyo markuu suuqa jooga ama guriga jooga ama beerta ka shaqeynaya isku mid ahaada buu raadinaya wixii aan waxa ahayn agtiisa waxay ka tahay nooc min an-nifaaq inay tahay inuu marna sidan yahay marna sidan yahay dabeetana Abu Bakar baa wuxuu yidhi sidaadanaba waa dareemaynaa bal inawadi nabiga loo yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qisadii looga dhaadhacay nabigu wuxuu ku yidhi walladii nafsii biyadihi ilaa naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee haddaa ku sugnaan lahaydeen sida aad tihiin markaa aniga ila joogtaan noloshiinoo dhamme hadday sidaa noqon lahayd malaa'igtaaba waddooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy waa bini aadamnimo ka bixi lahaydeen malaa'igtaa waddooyinka idinku salaami lahayd xandalow buu nebigu ku yidhi saaca wa saaca ساعة وساعة ساعة في الحرام وفي اللهو وساعة في العبادة مياه وساعة وحي حلاشة قوة هات سميسو غيرك أقل نقدت حولها شقيستي ساعة وحلال قوة إلى كوبنيات سميسو إيوه ساعة هذه له يقاري شو أدون كاتك بحديد إنه ساعة وين وضع نقالنا حقا لكن تنباير ذير إذا أنتين ربنين الكبعنا ومحي أنا متكهد لما يهدوك اللي حوك سدي وقتي وشقضي كاود حرفان ما كنت جار عضلة إلى كلها لكن كهد لي وحويان تنكله أي ضعيفتي تسالي هذه ما يراد أخلاق ده ونكسن هي النقك ونكسن يوحنا نرادين إن أنا تمار دشة سلوك هي النقك يسبدله كم مرة إلى القرآن كمركوت الماميو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قضية عبادة بين هيك ورا ما وحل وحل ليباني مؤمنين الصلاة دول خشوع ده كذا حاجة كلا وحل لقدر هذا أنا مثلا معاملات كترسل ومحل يدي والذين هم عن اللغو معرضون كأنما خشوع الصلاة وكان محي لغو لغا إعراض وحاجة لا إله إلا المامية والذين هم للزكاة فاعلون وعبادة كذا حاجة كلا المامية أخلاقية معاملات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مرهسة حاجة كان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأخلاق كسادنا إلهي مركز الصلاة التلمامية والذين هم على صلواتهم يحافظون كوا عبادة دولا يقوم منطي معاملات كود قومية هي dhaqankay dadka la dhaqmayaan iyo amaanaday say ula dhaqmayaan qumayay kuwaas ilaahay yidhi ulaa'ika humul waarithuun aladiina yarithuuna alfirdawsa hum fiihaa khaaliduun anin doora fadhideen darsiguna inuu iska dheeriyaa laga yaabaa waxaan ku soo koobayaa baatilka markaynu ilaalino midhuu dhalaa akhlaaq walidaalika aakhiro مفلس كحقيقي وحاول النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام مفلس كوحل إلى ضاعينه كان بر لهين قال محاتر هذا بنك نفسي كوكو دعي أفكار وحبها يسنين مفلس كما تقانين بويلي مركز إلى أنك أكتيده من لا درهم له ولا متاع بينه وكان العقي ماضي نول طور هيسنين كاسان ونقول لنا بيدادين واعيد نبغى حقولي كامها المفلس من أمتي ومضى إذا عيد وحوي أنك قيامها يمين إيه ولي بالله يمين نبغى يسقوا حقا صلاة يا إنسانة يا إن زكاة يسقوا وتليمين حقا عبادة ولا يمين لكن عبادة دي سمين بين النالين وايو ونبغى قلت المامي وحسيمي isagoo kan caayay oo kan been ka sheegay oo kan xoolaha ka boobay oo kan dhiigiisa daadiyay oo kan garaacay
يعني safu lawal ku jooga salaada markay tahay hadhowna soontana waa soomayay xajka iyo cumrada iyo meelaha waa tagaa reeruhu markay isdilayaan laakiin rasaastuu qaybiyaa dadkuu laayaa suuqa markay joogto dhacaya boobka iyo ammaano ma jirto wuxuu xadi karo wuu xadayaa wuxuu isweydaan marka xaggana cibaadu ka wadaa xaggana wuxuu doone kale ayuu ka wadaa kaa wuxuu nabigu tilmaamay aakhire isagoo caydha inuu imanayo waayo waxoogaagii xasanaadkee uu qaatay waxaa loo qaybinayaa buu nabigu yihi dadkii uu dee hantida ku lahaa ila wuu daymaysan yahay kuu caayay waa u daymaysan yahay kuu dhacay waa u daymaysan yahay kuu boobay waa u kuu dilay waa u dayntii lagu lahaabaa loo qaybinaya isaga salaadiisii iyo soonkiisii iyo wixiisii markaasay maranaysaa buu nabigu yihi intiiba waxa haddana soo hadhaya dadkii badh weli wax sheeganaya soo dadka maydan arag markuu kaco in xoolihiisoo dhan inta la xarasho loo qaybiyo dadkii wax ku lahaa aakhiro xarashkaasaad gelaysaa wixii aad soo shaqaysay oo dhan dad baa loo qaybiyey haddana xaraashkii dad baa kugu soo hadhaya adduunka waxaaba la yidhahdaa dee intaasuu buuhaya iska kala tagay aakhiro kala taga ma jirto kuwa kale dembigoodii inta lasoo qaadaa baa lagu saarayaa in u dhigata intii ayaa dusha lagaa sii saaraya marka adigoo dembigaagii sita iyo kii dadka kale aad maagtay waxoodiiba sida ayaad naarta galaysaa dabeetana ayuha alaxiba kelmaddani waxay ku koobantuun war ihtimaamka aynu siino muuqaalka maalka quruxda daaraha ihtimaamka aynu siino waxaynu u baahannahay mid ka badan inaynu siino maxay iimaankeenna caqiidadeenna cibaadadeenna akhlaaqiyaadkeenna diinkeenna halka aad nacayso dadka agtiisa inaad ku ceebowdo ama lagugu xaqiro oo la yidhaha kan waa faqiir iyo waxba ma haysta iyo reerkani way gaajoonayaan dadka hortiisa in lagugu xaqiro aad ka cabsanayso waxaad aada uga cabsataa ilaahay hortii inaad ku ceebowdo ilaahay agtii inaad ceebowdo maalinta qiyaamee dadku soo xaadirana inaad kuwa khasaaray noqotee jaaniskii iska lumiyey kaa aan aada ugu dadaallo ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala adduuniya aakhiraba wixii wanaag ku jiray inuu ina waafajiyo diinteenna in ilaahay subxaana wa tacaala inagu toosiyo waalidiinteennii dhintay in ilaahay u naxariisto innaga in ilaahay inooga daba naxariisto muslimiintu meelay joogaanba in ilaahay kitaabkooda ku soo celiyo xaq iyo diinta kuwii isku raacay in ilaahay ka yeelo gaalo in ilaahay ka soo reebo صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين